نلشطني وكديد هدف الحياة هدانت فهمنا أدو دالن بدقوت كجليسة أما مدحوين النقا أما تاجر نقا أما بليونير نقا أدو دالن بالله مرو ير لقا قد وطوبة يا وحكا الراعي يعني جرين وحلا لي وحدو دا شيء وحبكا الراعي مايا مدحوين أنا هاجري اللعق بالله هاجري هبل بالله markay marada kugu duubayaan bay meydku bixinaya hatta magacaaga hilmaanaya dib loo oran maayo madaxweynaha xabaash si fiican u dhiga ama taajirka xabaash si wanaagsan u dhiga ama uu hebel xabaash si wanaagsan cid ku oran mayso meydka iyadoo lagu leeyahay waa lagu sii wadaya indhuhu dhalanteed bay arkaan aqliguna ama maskaxduna dhalanteed bay aragtaa dhalanteedka soo taqaaniin meelaha markaad u kacdo woodwardka aad moodo in biyo fadhiyaan ishu marka ay ka fog tahay waa biyo isleedahay laakiin hadduu caqligu si fiican u shaqaynayo waad garanaysaa inaanay biyahayn meesha cadceed hayso haddaad si caqliga seexiso aad tidhaa war bal ka wardoon waa intaasay biyo noqotaay caqli haddaad tidhaa war seexo war bal meesha ka wardoon waa intaasay biyo noqotaay markaad timaaddo maxay soo baxaysaa dhalanteed هميغا نفتا دنيدا ku saabsan oo dhamina waa nooca wax kasta markuu ka maqan yahay buu ku yahay biyaha hilaacaya maalintaad se gaadho ayuu kula noqonayaa uun dhalanteedka aan wax weyn ahayn maalintaad gaadho baan wax badan noqonaynin haddaad buul ku jirto buulka waa lagu gamaa soo maaha alla seexda haddaad daarta ugu dheer lagu saarana waa la seexdaa wax ka badan lagama soo helo soo buulka laguma gamo daartana waa lagu gamaa waxa naftu raadinaysaana waa maxay waa inay gamaado inay maskaxda tan mashquulka ka yara baxdo la seexiyo si ay mar labaad u shaqayn karto meel kasta naftu way seexan kartaa in Soomaaliyeed baa waxa laga sheegay hurdaan macaanayna ma seexan cunaan macaanayna ma cunan weedhacaynkaas laga sheegay saddex mas'alo hurdaan macaanayn ma seexan buu yidhi markaan u baahan baa seexda markaad u baahan tahay markaad seexatana haddaad dhagax dushiisa ku seexato waad gamaysaa waa kaa imanaysaa markaanad see u baahnayn haddii lagu saaro sariiraha ugu fiican gami maysida waad burburaysaa cunadana waxay yidhaahdaan wuxuu yidhi cunaa aan macaanayn ma cunin waayo anoo gaajoonayaan baan cunaa buu leeyahay gaajadu waa iidaan adigoo gaajoonaya dii wax lagu siiyo berigii qaxoontiyada la joogay ninka koob shaaha hela wax ka macaani ma jirin saacayga maaha ama yaroo garow hela garowga canuuftaada iidaamaysa waayo gaajada wax waliba waa macaan noloshu waa sida maalin walba kaad heshaaba kula qadhaadhaanayo ka kaa maqan ba kula macaan maanta haddii garowga lagu siiyo dhadhami maayo shaahina dhadhami maayo waayo ka kale sii maqan baa kula sii macaan biisaad raadinaysaa laakiin berri markay biisadu kaa ag badatana dhadhami mayso kuwa biisada haysta inaanay u dhadhamin soo ma ogidin ma dhadhanto idan nolosha hadba inta maqan baa macaan oo qofku isleeyahay war malaa intaa haddaad gaadho wuxuu isbedeli lahayd hada meel cidla fadhiyaad isku qancinaysaa laakiin intii markaad gaadhana isbedel ma leh sida awgeed noloshu waxaan TV-yada laga akhrinayo iyo warkan yaan leedin mashquulinin waa beenaan waxba ka jirin dunida dadka isdila iyaga oo isugu dil badan reer galbeed meeday barwaaqada hada sheegayaan tusaamo weydin statistics-ka dunida dadka naftooda dila waxa ugu badan galbeed waxaana ugu yar caalamul islaami iyo Afrika kuwana waxba haysan ayaa ugu yar dadka isdila qof bini aadam oo isagu naftas ka qabta dadka isdila waxa ugu badan kuwa galbeedka jooga hadday baraartay maxay isu dilayaan may noolaadaan waa dhalanteedkii dadkii gaadhay way cuntami weyd dabeetana ka taga way siraadeen mala xagga kale aba war jiraay idan ayuha alxiba ilaahayna abuuray baa yaqaana naftani waxay ku islaaxayso isaga abuuray isagaana garanaya waxay ku islaaxayso wixii ay ku islaaxaysayna rususha laynoogu soo dhiibay rusushuna waxayna bareen inaynu rabbigeena caabudno
qof bini aadam oo qumman oo toosan noqono si aynu natiijada wanaagsan aakhiro u heli karno adduunkanna waxa laynoo sheegay inuu imtixaan yahay wixii laynagu imtixaamo inaynu ama ku sabirno ama ku mahadnaqno dii caafimaad lagu siiyo inaad mahadnaqdid haddaad xanuunsatidna inaad sabirtid hadday noloshu sidaa noqoto way fududaanaysaa dhadhan iyo macaanna way yeelanaysaa waayo tumaniinatu lqalb qofku hadduu helo iyo ilaahay raalli ahaanshihiisa wax ka maqani ma jiraan walidaalika baa culammadii waaweynaa rag ka mida ibraahim ibnu ladham baa waxaa laga sheegay waxaa la yidhi jeex roodhiyo qallalan ayuu webiga furaad darsaday roodhi qallalan hadda qiyaas ayuu webiga darsaday markaasuu goostay nimcadaannu hayna hadday boqortooyadu ogtay buu yidhi waynugula diririnahay ninkaasi roodhi engegan buu adduunka sitaa wuxuu ku iidaantayna waa biyo meel maraya webiguu daraya si uu u raamin karo waxaanu leeyahay low calamat ilmuluuk hadday ogaan lahaayeen boqorradu waxaannu nimco hayno way nugula dagaalami lahaayeen waayo ninkani tumaniinatu lqalbi buu hayey ilaahay buu rumeeyey caabuday ku kalsoonaaday noloshuu u arkayay waxa ay tahay dhadhankeeduu garanayey nolosha hadafka laga rabuu garanayey sidaa awgeed bay u fududayday u arkayeen nin cala ariiqa jidkii saxaha haya inuu yahay marka sidee su-aasha meeshan ku qoran waxa weeyaan sidee loo gaadhaa guusha dhabta ah intaynan wasaa'isha isweydiinin oo ah sida loo gaadhayo maxaa guul ah qormaynu odhan karnaa buu qofka bini aadamkii guulaystay ama guul dhaba goormuu gaadhay maalan bini aadamku si uu guul ama guul darro u sheego waa inuu hadaf target waa la yidhaahdaa yool waa inuu calaamadiyaa meesha markuu xadido ee calaamadiyo ayuu isweydiinayaa ma gaadhay mise maad gaadhin hadduu gaadhayna wuxuu odhanayaa waan guulaystay hadduu gaadhi waayana wuxuu odhanayaa waa maxay waan guul darraystay socanka maaha masalan qolada ordaya oo baritanka ku jira meel baa mara yar loogu xidhaa ama xariiq loogu jeexaa dabeetana waxaa la yidhahaa soo dhabaabaceeya soo orda ka ugu horreeya xariiqda gaadha gacmaha cirka u taago yidhaahda waan guulaystay socanka maaha yacni hadafku waa in xariiqdaa la gaadho oo intan kula ordaysa aad ka dheeraysid oo aad ka horgaadhid xariiqda haddiise aan xariiqi jirin oo hadaf meel loo ordayaa jirin ninba meeshuu doono hadduu cararo kee guulaystay markay qaar xaggaa u cararaan hadday qaarna xaggaa u cararaan kee baynu odhanaynaabaa guulaystay guul iyo guuldarro toona sheegi mayno waayo hadafkaan xadidnayn nolosha qofka bini aadamkii markaa waxay leedahay ahdaaf kooban oo yar iyo hadaf weyn oo ka xaqiiqiga ah ahdaaf kooban bay leedahay maalan arday baa tiin iskuulka markaad sanadkan dhiganayso ee aad wax soo akhrido aad diyaargarowdo imtixaanka aad gasho aad baasto waxaad odhanaysaa waan guulaystay saxiixa maaha waayo hadafkii koowaad ee ahaa sanadkan inaad dhammayso waa dhammayso markaad 3 sano ama 4 sano dhammayso waad guulaysatay waayo waraaq yaroo magacaagu ku qoran yahay iyo inaad secondary school dhammaysay waa lagu siinayaa markaad jaamacad gasho waan guulaystay baad leedahay oo koofiyada yaryar iyo maryo yaryar aan kuweyn u ekayn hore inta lagu xidho ayaa lagu odhanayaa waa calaamadii guusha dabeetana waraaq waa lagu siinayaa haddaba nolosha goormuu qofka bini aadamka odhan kara waan guulaystay noloshu waa wax kooban ninka dhallinyarada iyo inta badan nolosha intaasoo ku arka
waayo wuxuu tiriyaa intuu jiray imsaa jirtay anuu 20 maan marayo 22 laakiin qofku markuu da'a gaadho 60 iyo meelaha markuu soo gaadho wuxuu isweydiiyaa war talow maxaa ka hadhay shan baa kuu hadhay ma labaa kuu hadhay ma 10 baa hadhay intii xagga laga soo tirinayay dhammaatay hadda wuxuu xaggan ka tirinayaa war talow intee ka hadhay haddaba nolosha oo dhan markaynu eegno goormaynu odhan karna qofku wuu guulaystay ama wuu guuldarraystay waayo qof walba xaqiiqada bini aadamku uu wadaago ee wada rumaysan yahay baa geeri intaad doonto noolow waxaad doonto soo cun waxaad doonto soo qabo waad geeriyoonaysa idan xaqiiqda ugu dambaysa la gaadhaya halkan inta la joogo waa geeri intii kaa horraysayna waa geeriyootay inta joogtaana waa geeriyoon doontaa waa geeri marka la geeriyoodo xabaal yar baa la isku wada ridaa dad xoolo badan shaqaysato bilyaneer ahayd 2 maroo yaroo cadcad inta lagu duuduubo ayuunba xabaasha lagugu riday haddaad faqiir ahayd qaadaama dhargaan oo waxba haynin 2 maruunbaa lagugu duuduubay xabaashaa lagugu ridi haddaad magac iyo maamuus lahayd oo madax iyo wax soo martay maradaa unbaa lagugu duuduubay halka unbaa lagugu ridayaa haddaad nin iska xamaalo suuqiisa iska jooga ahayd maradan unbaa lagugu duuduubaya halkan marka dadkiiba ma isku wada noocba wixiiba ma maradan yare lagu duuduubaya ku dhammaanaya kee guulaystay markaa haddii wixiiba mara yaroo cad inta lagu duuduubay god lagu riday keebaa guulaystay dadkan noloshu waa inay hadaf leedahay waa inay qasdi leedahay markaasaynu garan karnaa yaa guulaystay yaan guulaysan man yutic illaaha maxaa ku xiga warasuula maxaa ku xiga ilaahay wuxuu tilmaamayaa ciddii ilaah iyo rasuulkiisa adeecday ayaa maxay ayaa fawska alfawz alcadiim kuwaasaa helay qur-aanka 4 jeer baa ereyga alfaa'izuun ku soo arooray 4 wuxuu ka warramayaa ka alfawz alcadiim 13 jeer bay ku soo aroortay 13 jeer baa aakhire ka warramaysaa alfawz alkabiir mar bay ku soo aroortay iyana xaggaasay ka warramaysaa alfawz almubiin 2 jeer bay ku soo aroortay 16 jeer baa ereyga alfawz la yidhaahdaa qur-aanka ku soo arooray 16 jeer 16 jeer midna adduunya ka warrami mayso 16 jeer ilaahay yiri ذلك الفوز العظيم أما هو الفوز العظيم أما الفوز المبين أما الفوز الكبير ليري انتبا وحاي كورميان وآخره إذن قوشة دبت نولش قوشة دبت داهي ومركات آخرة بدباده فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلهي وحين وقور رمي عدة قوليستين عدة صغرتهي سيداوغين سيدين لو بدبادا ما سيدين لو قادا قوشة نبطا حدين ودهنا وين نقطة طريق كستو ماشي أكو قارسين أيا وحي لو بدبادي لها طريق كستا وماشي اللي بانتيدا كو قارسين أيا وحي لو بدبادي لها ولذلك القرآن إلهي النبي نقول الموضوع أنبياء دمان تدوى قول استسامها نبي فاشل لم يجرى ما يا هذا إلهي القرآن وحي نقول الموضوع أنبياء ده قار مضح النغضي والدولة معمولي وجنيا يسيبه تليي سيدي سليمان يا داود يا أنبياء مدح وين الله وورمه وحكى له القرآن كورمه وفريقا تقتلون أنبياء للايي يروح معمولة دايي يروح خبطه كولا السيئة ما إلى القرآن كورمه هذا نوح لنا أنبياء دوا ودقول يستين نبي فاشل ما جرى ما قول درست نبي ولا بقول يستين واي هدف كحقيقي أن الله شو قرط noloshu maxay tahay buu fahmay
dabeetana isagoo jidkii nolosha ku socda ilan qof waliba waa dhimanaya ama lagu dilaa ama meel saka ku dhimay qof waliba waa dhimanaya isagoo jidkii hayay ka baxday saadaradeed baa loo leeyahay wuu guuleystay laakiin dhalinyarada weydiiyay ninka badaha isku maqiiqay ka booda ee naftu kaga baxdo iyo ka talaabay Yurub gaaray mana dharakaasi waa guuleystay midna wuu dhintay saas ma tahay Yurub la gaadha wax nafta loo bixiyo miyay Yurub la gaadha wax nafta loo huro miyay wax noloshu waxaad u noolayd miyay وهدي اللواية أي تهين الضمطه أيها الأحبة dadka intiisa badan waxa ka qaldan wixii loo noolaa markii la garan waayay waxa loo nool yahay ayaa ninba bad cidlaa ku geeriyoodo meel kala qofba sidoo meel u orday mid isagoo xoolo raadinaya ka baxday mid isagoo dad laynaya ka baxday waliyahan dagaalama reer buu dagaalamay wuxuu haystaa reerka kale haday dad badan ka laayeen inay guuleysteen iyagoo faraxsan bay soo noqoneen maxaa qabateen waa jabinay buu leeyahay reer hebel xabadi kama saydin reer hebel haddii aakhira loo diro miyaa la guuleystay reer hebel haddaynu aakhira u diro ma guuleysanay يعني dadku waxay garan waayeen wixii loo noolaa hadaful xayaa baa la garan waayay waxa loo nooliyaa la garan waayay waxa wax loo baranayaa la garan waayay waxa loo guursanayaa la garan waayay waxa loo joogaa la garan waayay wax oo dhama haday lillaahi yihiin iyo ilaahay tiisa wax idin gaarsiinaya wa fuztu wa rabbil ka'bah saxaabigu sheegay intii midida la galiyay waranka la galiyay saxaabiga geeriyooday wuxuu yiri fuztu ورب الكعبة وأقول استيبولي ربك الكعبة لما كنا عرطيه وأنا اللي دلي ولي بدي الغدر يبقى اللي دلي يعني دي الخيامة ديك ورا نمن وتمادو وأمر قرا وحكوش يجان وهذا بدنا النصيحة ده كتلين السي وأمر كاتو تمادو بدين تحقق دبك عمره ورم كوجليه هذا الله يطلع إنه ما هو خيامية وإنه ما هو يدكرين لكن هنا وحو أركيي نولش وحو رادعيني إنه هلو شهادة سادراتين ما إيجين قولدان خيامي سيئيو مكرقا لسميي وحنا نبوما موغانا وحاو موغاتي هلكو سعودي وحو أركي بين طريقي وصوق قابيان جنة اللو سعودي ميلدو إنه كتلاب صدي سادراتين بوحو له فزت ورب الكعبة دليري وحردي شيقي يا مرك إن قوليستان يانا قول دريستان waxay ku xidhantay hadafka aad xadidateen wax noolaada ma yahay oo cimri loo bixiyo oo waqti loo lumiyo mise maaha hadduu waxa qiimaha leeyahay markaad gaadho waad guuleysatay haddii aanu ahayn waxa qiimaha leh markaad gaadhaa buu habaan mansuura noqonaya ayuu ma waayaysaa wixii marka hore waxa salahayd guul baad xaqiijinaysaa kayrugu sii rooraya marka uu badda nafta ku halqiyay waxa la guul baad gaadhaysaa laakiin markuu xagga kala tago ayuu ma noloshu waa cidhiidhi noqonaysaa soo BBC meelaha kama maqashaan mid isagu da qantaradii ka talaabo la wareysanayo leh hadaa sidan moodayo way wuxuu isla hadda halkan ka talawdo حاجة كلام لا جنة كحكتور رجيني لعق يا برارة يا برواقة يا ورسيدنا أقول بنتينو بل أقول بيا حكارة حبيس ما بدلين حلقة يا بدات كبرنا إلى هذا هاي كوي حاجاتك سكوا قردارة صار استيمها ورن لكن غير كنا حلقة يا بين كون قفكر ضفتي إمسا دار صار استي توما صار استي سجال بقولي سجال كي كلام يسوي دي سن حاجة كم غير وكوا هل كان جوجا طبعا كم بدمياني دارا دسان halkan jooga dadka halkan degan toba kamid oo daara dhistay ma jiraan waan talaabin ba ka badan ku halkan jooga intay daara dhistay ba waxay ka badan tahay in xagga tagtay daarahay dhisatay waxaan uga jeedaa haddaad xataa soo dhisato si godka gelimaysid maxaa ka dambeeya noloshu waxay qiimo ku leedahay in la fahmo waxa loo nooliyay قالت أقار بدن بمانت ويستلان
weliba gruubka istila waxa ugu badan tabaqada sare الطبقة الكادحة maaha dadka istila waa kuwa wax haysta waa injineerada iyo professorada iyo dhakhaatiirta iyo maalqabeennada waa kuwa dadka istila dad maqasho Yurub waa la istila dadka istila waa kuwa maxaysatadu isma dishay inta badan waayo waa mashquulba maxay isu dileen waxay moodayeen inuu guul yahay baa markay gaadheen buu dhadhan samayn waayey waxay moodayeen guul ayaa markay gaadheen ayuu macno u samayn waayey habeen dhaweyd baa nin dhakhtar wuxuu lahaa waxaan dhalinyarada markaan nahay buu yidhi wax baro wax noqo caynka noqo dhakhtar noqo surgery wixii baanu noqonnay dabeetana markaan wixii noqonnay waa Yurub noloshii waxay noqotay buu yidhi in lagu yidhaahdo intaan jimcaha soo galo ilaa isniinta inaan dhakhtarka ku jiro waan waqti aad seexata lahayn waxba lahayn saacad kasta lagu toosinaya soo kac beeshan baa la keenay mid baa sakaraada mid baa caynkana maxaan ku samaynaa dhowr iyo 30 saacadood baad soo fadhiyaysaa hadhow markaad noqoto waxaad noqonaysaa buu leeyahay adigoo daalan oo naftu ku haysato gurigii hudheelka haddaad tiraahdaa wax cun waad ka wahsanaysaa waad daashay waa inaad cunno yaro intaad gaadhiga sii wado aad liqi karto waayo wuxuu rabaa sariirta hadduu gaadho inuu istuuro kadib markaan muddo waday buu yidhi baa lacagtiina dhadhasamay war waxaanaad u nooshay waa maxay waxaan uu nool yahay intaasoo sano wuxuu soo baranayay doctorka uu soo noqday qalliin u bartay mutakhasis u noqday ayaa markii uu gaadhay dhadhasamay waayo hadafkaa qaldan wuxuu noolaa baan u garanin tacab buu ka sii qaaday daal iyo inuu seexan waayo dabeetana wixiiba intuu iskaga yimi meelaha yimi waxaan uga jeedaa iminka waxaad isleedihiin waxbaa maqan haddaad lacag badan hesho maxaad samayn lahayd aad baad wuxuu cuni lahayd caloosha wax badan ma qaado ma lacagta kuu badato intan aad iminka cunto ka badan ma qaado kadan haddii lagu ridana way xanuunsataa oo dhiikar iyo macaan iyo kolestarool iyo baliya baas baa ku dhacaya dabeetana waxa lagu odhanaya haddaad rabto inaad noolaato wuxuu dhan waa inaad ka yaraysaa idan maxaad ku samayn daashay oo naftaadii waxay u baxday in lacag badan la helo lacagtii badnayd markii la soo helayna wax macnay samayn weyd hawl badan unbay keensatoon iyo inaad dadka la tukan kari weydo markaas salaada soo galbo 10 albaabka sukiisii taagto ad sidii wax waalan albaabka dambe ka boodid inta waxaysato u fursan markay masaajidda soo galaan degdeg bay kaga baxayaan waayo tooma meelaha tahay naftaa la isugu keenay idan noloshiiba aduu intaada yarkamaha ka qaata halkaa ka baxda cidina kuma daba socoto socanka ma wax ku boodar garaynaya iyo wax ku dhibaya ma aragtid inta magac iyo maamuuska leh kamarad baa lala daba ordaya iyo halkuu marayay waa kano waa luuqluuq bay marayaan inta mudanay lafahooda bay u baqayaan imka haddaad madaxweyne noqoto dee maqaaxida ka shaahimaysid xorriyadda waad waayaysa maxbuus sharafeed baad noqonaysaa qol baad ku xidhantiyo meel laakiin lagu odhan maayo waa xabsiye waa qolkii madaxtooyada lagu odhanaya waa qol sharaf leh qolkii sharafta laakiin haddaad ka soo baxdo waa in askari iyo bunduqiyo iyo qoryo ku daba rooraan waa xabsi dhabaad gelaysaa yaa lagaa xabsinayaa intaad u talinayso intaasaad ka baqaysaa iska ilaalinaysaa ka fogaanaysaa markaa waa xabsi sharafeed baa la yidhaahdaa waa maxaabiis madaxduye laakiin waa maxaabiis sharaf leh waa maxbuus aan wax cuni karin madaxda waaweyn ee dunida maqashaan wax ma cuno ilaa in laga dhadhamiyo mooyaane adiga ma cidda cunada kaa dhadhamaysaa wixii kula macaanaadaba waad iska cuntaa laakiin wax walba uu ka shakisay cunadiisa waa in la soo dhadhamiyaa gaadhigiisa waa in la soo eegaa halkuu tegayo waa in mukhaabaraadka oo dhammi war ka bixiyaan meeshu maaha aamin maanta tegi kari maysid 10 casha ha ku dhaafaan iska sug maalinta dambe caynkaasay noqonaysaa waa inuu qof meel gaadho adigu meesha aad u baahato baskaa kaa xiga inaad fuusho tusaa maaha laakiin ninka madaxda ahi meeshu u baahdaa sidaa maaha idan bini aadamku wuxuu ammaanta moodaya xabsi isu bedelay wixii uu rabay inuu xaqiijiyo ayaa xabsi isu bedelay ayuu waayay qofku xorriyadiisii u ahaa qof bini aadam oo nool ayuu alaxibba marka war noloshan adduun qiimo ma yaallo
نولشنا الدون إلهي وحليه يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا ولقد خلقنا الإنسان في كبد بروبلم كايس بدله معلم بروبلم كاد كيف فكر يشوف باكي هرك جديسن مشكلة ده نوع عيدون بيسبدلية يمكن واحد لقى بين أدلة هاي ده مشكلة عنا يريه وانا هاي سو صدق حمله عن جلابة إسلام تنصيصان وكم في الله هذا مشكلة عنا حميون باكو هليسا أو واحد لقونا كنا عني ميسد كنا عني ميسد كنا عني عنا دوار هاي صح لكن هو ممنوع معان بعض غبطة أنت معان عني ميسد برشر بعض غبطة أنت أنا عني ميسد وهو واحد اللي هو ممنوع إما كواد حرية بعض هاي صح لكن لما قاعد واسك فرديا محاط حسابها أنكو هيا لكن كما دحويني وحسلي مروا يا مقاعد كوع عليه اسك هيستو ددك تلاهي war maxaa haysaa ma haysto idan nolosha problems keeda isbedela laakiin guul maletani marka aad heer ka talowdaba mushkilad cusub oo isla mushkilad baad xallishay dhalinyaro wadatiin hada wada guurdoon baatiin Soomaa laakiin maalinta guursataan عرور يرير iyo dhakhtar iyo islaantii baa uur la iyo dhakhtarka la geynaya mushkilad kale uma ku bilaabmaysa adduunku waa dhibaato marka adduunku waa kabad waa daal waa beer xanuun inta la nool yahayna waa lagu jiraya waxa ku jiray dadka kuwa Ilaahay ugu jeclaa ya rabbi ugu jeceliyo dunida dadkii noolaa oo rasuul maaha rasuushii loogu jeclaa baa ku jiray dhibta قرآن الرسول للدلي هي الرسول لإريدي هي الرسول دقالمي وحب والله ينقى وربا نبي محمد تاريخ دي سبينه إن عليه الصلاة والسلام أغون نمو رجين نمو إنه لغا سار دولك ورد شيء ميشيسي دقالو قلو نفتل سوك وحاصر بني آدم كمرو مري إذن الحياة هكذا هذا بهذا ربنا نولا شيء نقول كحقيقي إنه قولي وين تأدي إلهي ودواتون هداد إلهي كل دواتون نولشن بافضايد ميسا حتى مشكلات كده يصير نقرية مشكلات كده سيدا لو حللو أي فضودانية أنا مركا وحن رباون إن السؤال بدل مدحين كوكعية جوابه هنا أنت المسيدين شاقين نغط سألوا حويان نولشتني وكديد هدف الحياة هدانت فهمنا أدو دالن بدقوت كجليسة أدو دالن أما مدحوين النقا أما تاجر نقا أما بليونير نقا أدو دالن بالله مرو يرير لقا قد وطوبة يا وحكا الراعي يعني جرين وحلا لي وحدو داشي وحبكا الراعي مايا وحبكا الراعي مايا مدحوين أنا هاجري اللعق بالله هاجري هبل بالله مركي مرضك وقضوبة يا بي ميتكو بحنية حتى ما قاعد هلمانية دب لورن ما يا مدحوينه حباش في عنو دغا اما تاجر حباش سي ونكسر دغا اما او هبل حباش سي ونكسر عيدك اورن ميس ميتك يدا لو ليهي وبا لو سي ودايا adaba waxa haboon indhuhu dhalanteed bay arkaan aqliguna ama maskaxduna dhalanteed bay aragtaa dhalanteedka soo taqaaniin meelaha markaad u kacdo woodwardka aad moodo in biyo fadhiyaan maxaad tidhaahdaan ya okay ishu marka ay ka fog tahay waa biyo isleedahay laakiin hadduu caqligu si fiican u shaqaynayo ood garanaysaa inaanay biyahayna meesha cadceed hayso haddaad si caqliga seexiso aad tidhaha war bal ka wardoon waa intaasay biyo noqotaay أغلى هذا ترى ورثه واربل ماشي كوردور ويتا سيبي نوطاي مركات ما دام حيسو بحيسه دالنتين هميغا نفته دنيا ku saabsan oo dhamina waa nooca wax kasta markuu ka maqan yahay buu ku yahay biyaha hilaacaya maalintaad se gaadho ayuu kula noqonayaa dhalanteedka aan wax weyn ahayn maalintaad gaadho baan wax badan noqonaynin haddaad buul ku jirto buulka waa lagu gamaa soo maaha waa la seexdaa haddaad daarta ugu dheer lagu saarana waa la seexdaa wax ka badan lagama soo helo soo buulka laguma gamo daartana waa lagu gamaa
waxa naftu raadinaysaana waa maxay waa inay gamaado inay maskaxda tan mashquulka ka yara baxdo la seexiyo si ay mar labaad u shaqayn karto meel kasta naftu way seexan kartaa in Soomaaliyeed baa waxa laga sheegay hurda aan macaanayna ma seexan cunno aan macaanayna ma cunin weedha caynkaasaa laga sheegay 3 mas'alo hurda aan macaanayn ma seexan buu yidhi markaan u baahan baa seexda markaad u baahan tahay markaad seexatana haddaad dhagax dushiisa ku seexato waad gamaysaa waa kaa imanaysaa markaanad see u baahnayn haddii lagu saaro sariiraha ugu fiican gami maysida waad burburaysaa cunnadana waxay yidhaahdaa wuxuu yidhi cunna aan macaanayn ma cunin waayo anoo gaajoonayaan baan cunaa buu leeyahay gaajadu waa iidaan adigoo gaajoonaya dii wax lagu siiyo berigii qaxoontiyada la joogay ninka koob shaaha hela wax ka macaani ma jirin saxiixa maaha ama yaro garow hela garowga canduftaada iidaamaysa waayo gaajada wax waliba waa macaan noloshu waa sida maalin walba kaad heshaaba kula qadhaadhaanayo ka kaa maqan ba kula macaan maanta haddii garowga lagu siiyo dhadhami maayo shaahina dhadhami maayo waayo ka kale sii maqan baa kula sii macaan biisaad raadinaysaa laakiin berri markay biisadu kaa ag badatana dhadhami mayso kuwa biisada haysta inaanay u dhadhamin soo ma ogidin ma dhadhanto idan nolosha hadba inta maqan baa macaan oo qofku isleeyahay war malaa intaa haddaad gaadho wuxuu way isbedeli lahayd ee adaa meel cidlaa fadhiyaad isku qancinaysaa laakiin intii markaad gaadhana isbeddel ma leh sidaa awgeed noloshu waxaan tiiviyada laga akhrinayo iyo warkan yaan laydin mashquulinin waa beenaan waxba ka jirin dunida dadka isdila iyaga uu isugu dil badan reer galbeed meeday barwaaqaday haddaa sheegayaan tusaa ma ogidin statistiska dunida dadka naftooda dila waxa ugu badan galbeed waxaana ugu yar caalamul islaami iyo afrika kuwana waxba haysan ayaa ugu yar dadka isdila qof bini aadam oo isagu nafta iska qabta dadka isdila waxa ugu badan kuwa galbeedka jooga hadday badhaadhatay maxay isu dilayaan may noolaadaan waa dhalanteedkii dadkii gaadhay way cuntami weydi dabeetana ka taga bay sidhaahdeen mala xagga kale aba war jiraaye idan ayuha alaxiba taladu waxa weeyaan ilaahayna abuuray baa yaqaana naftani waxay ku islaaxayso isagaa abuuray isagaana garanaya waxay ku islaaxayso wixii ay ku islaaxaysayna rususha laynoogu soo dhiibay rusushuna waxayna bareen inaynu rabbigeena caabudno qof bini aadam oo qumman oo toosan noqonno si aynu natiijada wanaagsan aakhire u heli karno adduunkanna waxaa laynoo sheegay inuu imtixaan yahay wixii laynagu imtixaamo inaynu ama ku sabirno ama ku mahadnaqno dii caafimaad lagu siiyo inaad mahadnaqdid haddaad xaruusatidna inaad sabirtid hadday noloshu sidaa noqoto way fududaanaysaa dhadhan iyo macaanna way yeelanaysaa waayo tumaniinatulqalb qofku hadduu helo iyo ilaahay raalli ahaanshihiisa wax ka maqani ma jiraan walidalik baa culammadii waaweynaa rag ka mid ah ibraahim ibnu ladham baa waxaa laga sheegay waxaa la yidhi jeex roodhiyo qallalan ayuu webiga furaad darsaday roodhi qallalan hadda qiyaas ayuu webiga darsaday markaasuu goostay nimcadaannu hayna hadday boqortooyadu ogtay buu yidhi waynugula diririnahay ninkaasi roodhi engegan buu adduunka sitaa wuxuu ku iidaantayna waa biyo meel maraya webiguu daraya si uu u raamin karo waxaanu leeyahay low calamat ilmuluuk hadday ogaan lahaayeen boqorradu waxaannu nimco hayno waynugula dagaalami lahaayeen waayo ninkani tumaniinatulqalbi buu hayey ilaahay buu rumeeyey caabuday ku kalsoonaaday noloshuu u arkayay waxa ay tahay dhadhankeeduu garanayey nolosha hadafka laga rabuu garanayey sidaa awgeed bay u fududayd u arkayeen nin cala ariiqa jidkii saxaha haya inuu yahay idan waxa kaa maqan maaha waxa qofka ka farxiyaaye waa waxa kugu jira iyo waxa aad dareemayso iyo sida aad u fakarayso
iyo waxa hamiga ku haya kaas baa qofka waxa farxad geliya. waxaan ku soo koobaya warka markaa in madaxweyne la noqdo guul maaha ee waa mas'uuliyad la kororsaday. in lacag badan la helaa guul maaha ee waa mas'uuliyad la kororsaday. in magac weyn la helaa guul maaha waa mas'uuliyad la kororsaday. laakiin ama madaxweyne ahaw ama taajir ahaw ama magac lahaw ama miskiin ahaw inaad ilaahay raalli gelisaaba guula. idan qof waliba wuu guulaysan karaa bima cindahu min imkaaniyaat buu ku guulaysan karaa. waxaad haysataa intuu leeg yahay. haddaad madaxweyne cadaalad iyo diin iyo akhlaaq iyo dhaqan iyo wanaag wada waad guulaysan kartaa. alimaamu alcaadil 7 jannada carsh araxmaan harsan ayuu ka mid yahay. haddaad nin dhallinyara oo dhowrsoon oo akhlaaq leh waad guulaysan kartaa. shaabu nasha'a fii cibaadat illaah waad guulaysan kartaa. haddaad qof yacni mustawaha nololeed ee aad joogto guushu markaa kuma xidhna. adduunka inta kaa soo gaadhay magac iyo maamuus iyo hantina guushu kuma xidhna. waad kadeednaan kartaa adigoo madaxweyne ah. waad kadeednaan kartaa adigoo taajir ah. waad kadeednaan kartaa adoo magac iyo maamuus leh. waanad kadeednaan kartaa adigoo faqiir ah. intaba kadeedku wuu la socon karaa, guushuna way la socon kartaa. idan guush iyo kadeedku ama guush iyo guuldarradu kuma xidhna waxa gacantaada ku jira iyo magac iyo maamuuska aad leedahay inta uu leegyahay kuma xidhna. kaa kuma xidhna. waxa uu ku xidhan yahay inta aad rabbigaa xidhiidh la leedahay, inta aad nolosha macnaheeda fahmayso, inta aad garanaysa maxaad u nooshahay. qof hadduu maanta dhaqaaqo socdaal galo meel uu socdaana aanay jirin se uu yidhaahdo mar qura nasan maayo ow daalo muxuu kororhsada? xaba mu kororhsan soo maa. laakiin haddaad hadaf leeday, haddaad rabto inaad berbere gaadho, waa hadaf la garanaya mar umaad gaadhi doontaa. waa hadaf muxadada. nolosha haddaad hadaf dhaba ka yeelan weydo 60 sane ama 70 sane lagu siiyey way dhammaanaysaaye haddaad hadaf ka yeelan weydo waa inaad rabbiga raalli geliso, jannana raadacaysatid, naarna ka badbaadid. hadafkaa haddaad xaqiijin kari weydo noloshu qiimo ma leh. wax kastoo agtaada yaallana qiimo ma leh. waad kadeedanta, inta kadeedan baad ku jirtaa. haddaad intaa fahamtana inta guulaysataad ku jirtaa walow aqoontaadu ha yaraato. tusaalaan idin siin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo fadhiya xadiidka bukhaari ayaa nin soo maray. qoladii la fadhido yidhi bal ninkaa ka warrama. waxay idhaahdeen waa nin hadduu gabadh ku weydiisto waa nin gabadh la siiyaa bay idhaahdeen. hadduu shafeec erga kugu yimaadana waa nin ergadiisa la aqbalo. hadduu hadlana waa nin la dhegaysta bay idhaahdeen, mudan in la dhegaysto. yacni bini aadamku wuxuu wax ku qiimayn jiray. haddii gabadh lagaa soo doontana waa nin dumarka la siiyo. hadduu dankaa yeesho shafeeca kuugu yimaadana waa nin magaca ergadiisa la aqbali karo. hadduu hadlayana waa nin la dhegaysan karo. nebigu wuu iska aamusay, ma comment garaynin. mid kalaa soo maray, markaasuu yidhi kaa ka warrama. markaasay idhaahdeen hadduu gabadh ku weydiistana mid loo guuriyo maaha. hadduu erga kuugu yimaadana ergadiisa ku la aqbalo maaha. hadduu hadlana ku la dhegaysta maaha bay idhahdeen. yacni nebigu wuxuu barayaa saxaabada mawaasiinta maxaa wax lagu qiimeeya, bini aadamka see loo qiimeeya. dabeetana wuxuu yidhi lamil'u haada min daak. kaa hore iyagu lahaayeen waa wax walba wuu yahay. dhulka muggiyoo kaasa ninkan baa iskaga khayr badan buu nebigu yidhi. waa hal nin iyo dhulka muggiyoo kii kale ah. maxaa halkan nin iyo dhulka muggii isweydaariyey? waxa isweydaariyey mawaasiinta wax lagu qiimaynaya kala nooc ahaa. waayo dhulka muggiyo naar ku sii socda geedi naareed ah faa'iido ma leh. xabad jannada u sii socotaa dhaanta soo maaha. hal qof xagga jannada u socda iyo dhulka muggiyo xagga naarta u guuraya dee faa'iido ma leh. walidaalika nebigu wuxuu leeyahay dhulka muggii oo kaasa qof quroo kaasaa dhaama. ayuha alaxibba
waxaa dhibtu inaga haysataa waxa weeyaan dadka mawaasiintii baa laga qalba wixii ay wax ku qiimayn lahaayeen waxay wax ku qiimayn lahaayeen baa waxa laga dhigay wax bini aadamku ka qiimo badnaa gaadhi iyo daar iyo waxaas maaha waxa lagu qiimayo qofkii mise daarood buu leeyahay qiimihiisu maaha mise gaadhuu wataana qiimihiisu maaha gaadhigu wataa noocuu yahayna qiimihiisu maaha qofku intuu rabbigii ku xidhan yahay u dhow yahay buu qiimihiisa dhabtahay taasun baana aakhiro marka la isugu yimaado wax anfacda adduunka inta la joogana kadeedka qofka ka biisa ilaa adduunka adoo waxaystaad kadeedan tahay haddaanad deganayn marka sidee su-aasha meeshan ku qoran waxa weeyaan sidee loo gaadhaa guusha dhabta ah si fudud baa lagu gaadhaa dhammaantiinna waa gaadhi kartaan waa jidkii nebi maxamed inaad raacdaan calayhi salaatu wasalaam dhammaantiin waa gaadhi kartaan dadka ha xamanin ha caayin ha maagin akhlaaqdaada hagaaji bini aadamka si fiican ula dhaqan waxaad ka xoog roontay waa cadaalad samee salaada iyo zakada iyo cibaadaadkaaga samee akhlaaqiyaadkaaga ku dhaqan waa in nin waliba awoodo in lacag u baahan maaha iyo magac iyo maamuus uma baahna waa in qof waliba awoodi karo idan waxaan rabaa un inaan idin idhaahdo guusha dhabtaa sidee loo gaadhaa haddii la yidhi dadkoo dhammi waa gaadhi karaa nebi maxamedna wuxuu yidhi dadkoo dhan baa jannada gelaya ilaa man abaa mooyaane ninkii isagu diida mooyaane dadku jannaday wada gelayaan buu nebigu yidhi ninkii diida mooyaane oo yaa diiday baa la yidhi oo wuxuu yidhi ninkii i raacaana jannuu geli buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam dee ninkii diidaana ay raaci waayaan isagaa diiday idan inaad guulaysataa kuma xidhna inaad yar tahay iyo inaad weyn tahay kuma xidhna inaad lacag haysato iyo inaanad haysanin kuma xidhna inaad madaxtay iyo inaanad ahayn kuma xidhna inaad cilmi badantay iyo inaad cilmi yartay waxay ku xidhantao keliya itijaaha nololeed xagga aad u jeediso directionka aad u jeedee raacaysa ma waddada xagga ilaahay qabataad maraysaa mise waddada xagga naarta qabataad maraysaa waddada xagga ilaahay qabata waad mari kartaa adoo lacag liya adoo faqiir iyo adoo waxhaysta iyo adoo maamuus laba xagga naartana intaba waa lagu mari karaa labadaa wadda inaynu kala dooranno ayuunbay ku xidhantahay guushu inta ay leegtahay ilaahay waxaan ka baryayaa subxaanahu wa tacaala inuu dariiqa xaqa ayna tusiyo اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا واغفر لنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا واغفر لنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.